Hello guys, waa idin salaamay kusoo dhawaada qalbi Wasafagas. Maanta waxaan ii sheegi rabaa amba aynu casharkeena ku dhigan doonaa waxa weeye siduu u dhacaa peak of structure-ka saxda ah oo siduu ogaan kartaa structure-ka saxda ah inuu down train yahay amba am traeyay amba inuu bullish amba bearish yahay. Bullish iyo bearish iyo down train yahay waxa la suuqiis in suuqa amba kor u socda amba hoos u socda ayaa lagu yeedhaa. Marka peak of structure horta macnaheedu waxa weeye waa new high amba new low cusub baa samaysmay weeye macnaheedu oo haddii aad ogaataan structure-ka saxda ah suuq siduu u salaysan yahay suuqan waad tumi kartaan. Waxa kale waa order block-yada iyo inducement-iga iyo liquidity-ga iyo general liquidity waxaas kale waa la fahmi karaa laakiin dadkeenu waxay fahmayaan un boos bay dhahayaan boos halkana order block hadda lagamaba istaajinba pullback-tii amba dhaqaaqiisan kusoo socday high low kusoo socday lagamaba istaajinba dhaqaaqa lagama istaajin bay dhahayaan. Suuqu saas ma ku socdaaba filma sida halkani boos bay noqotay wuxuu ku dhahayaa order block meel iman bay garanaya dee SL buu kaga dhacayaa suuqi still ma oga structure-ka saxda ma oga. Marka videogeenan waa siduu u ogaanay structure-ka saxda ah peak of structure-ka iyo George-ka baynu ku barananaa. Casharkeena idin guda galno. Halkan waa peak of structure xaggan weeye sababtoo ah waa tan la sweep gareeyey high-gii ka sarreeyey inducement-gii hore waa tan la sweep gareeyey halkaas waa inducement-ii waayo goormuu structure-keena boos noqon karaa wuxuu boos noqon karaa marka pullback-tan kusoo socota marka pullback-tan kusoo socota low high low markina laga istaajiyo oo dhaqaaqan down train-ka hoos socday markina laga istaajiyo maaragtay markaas ayuu peak of structure-keenu sax noqonayaa. Marka ilaa halkan waxay noo noqonaysaa inducement bay noo noqonaysaa inducement macnaheedu waxa weeye dad baa bartan ka furaya like halkan bay dadku dhimaano u tahay oo smart money trap way bartan baa ka furaya deetan maxay sameeyeen sub yani bedelne waxaa la sameeyey maxay sameeyeen dadkii bartanka ka furay SL-ka ka furay horta watan kow watan inta la yiri mid gareey SL laga dhuftay kuwii bartan lagaga dhuftay iyagana oo bartan ka sel gareeyey inta in yar suuq hoos soo wadeen baa iyagana SL-ka lagaga dhuftay taasaa la dhahaa inducement-ii kaasaa la dhahaa. Marka in pullback-tan laga istaajiyo weli structure-keenu sax noqon maayo marka waa in pullback-tan laga istaajiyaa waa la istaajiyey suuquna shadow-gan buu kasoo noqday fursada salka halkaas ka qaadan lahayd macalka waxaa ku jira candle sweep waxa la yidhaha waad baran doontaa isagana candle sweep high baa ku jira bilaa confusion oo ku qaadan lahayd ba trade-kan sababtoo ah tan lagu sweep gareeyba fursada salka halkaasaaba ka qaadan lahayd. Iminka day baan joognaa waa ayaamo hore waa ilaa 3 months ago weeye amba 4 months ago suuqani saas u soconayaa. Okay halkan maxay nooga dhacay ku socon casharkeena halkan peak of structure bay nooga dhacay kan waa peak of structure. Okay pullback-tii ugu dambeysay meeda waa tan oo tan saan kusoo socota like waa tan kusoo socota low high low high low waa in laga istaajiyaa. Okay let's say eegno. Okay waa la istaajiyey order block saxda ah baa bata laga baygareeyey laga salgareeyey ama laga baygareeyey dee fursadda salka halkaas agidana kasoo qaadanaysaa oo waxaad u daadegaysaa one day baan joognaa 15 minute baa u daadegaysaa amba 1 hour u daadegaysaa short iyo inducement like dhinacan oo kale order block bay raysanaysaa in pullback-ta laga istaajiyo. Okay saasaa suuq ugu shaqaysanaysaa. Okay let's say eegno haddana wuxuu noo sameeyey peak of structure buu noo sameeyey oo halkan waxay noqonaysaa boos bay noqonaysaa. Okay meeda last inducement ugu dambeysay waa tan pullback-tii ugu dambeysay waa tan in laga istaajiyo isagana doonaynaa. Okay wala eegno. Okay isagana waa in laga istaajiyey order block baa la sweep gareeyey waa tan pullback-tii hoos socotay kusoo socotay low
high low high وتاني laga istaajiyey weydinkaa wala arkaa deeto order blockan saxdaa baad kasoo baygaranaysa salgaranaysaa marka baygaranaysaa chorus waa kaa taabtay ma yahow waxaan hadda idiin sheegayo wallahi inay istiraatiijiyadaha keliya lagu sheegin smc laakiin waxa lagu sheegaa waxa weeye ninka keliya sheega waa my mentorkayga weeye oo trading hub master khan weeye ninkaasaa si fiican kuu sheegaya waxan oo ka dambeeya inaan cilmigan maanta aan barto laakiin qof soomaali ah oo kuu sheegaya suuqan wax saxda ma jiran iyo amba qof ajaanibaba marka ku socona casharkeena waxay fursadda isagana salga xaggaas ka soo qaadan list aan eegno in suuq brig u jabiyey oo balkanna waxay noqonaysaa boos bay noqonaysaa okay list aan eegno in isagana hay kale noo qaado okay of course halkan inducement mate pullback ugu dambeeyey mate last pullback yes of course wait okay maxay ku socotaa pullbacktan low high low high buu ku socotaa wakaa ma la jabiyey order block baa laga qaatay waa kan order block baa laga baageliyey hadduu asal ku dhaco amba order block kale u arkaa of course order block kan kaleba and waa list order block ka u taabtayba okay fursada kale eegna isagana okay waxaa dhacay break of directive baa dana dhacay bas war 15 minute 1 minute 2 minute like sidaan kuu sheegaya lagu leeyahay pullback in laga istaajiya okay maxaa dhacay halkan lasi waxaa dhacay alamsalaam inducement baa dhacay kan inducement ay noqonaysaa order blockgaasay noqonaa bal in laga soo noqday eegna isagana okay suuqan order block ma ka noqdayba lasi order block yarba ma order block kan okay suuq inducement uu qaaday pullback ugu dambeysay oo laga istaajiyay ka socotay low high low high low laga istaajiyay of course oo laga istaajiyay lasi eegno okay of course wuxuu sameeyey break of structure buu sameeyey oo boos ah pullback ugu dambeysay last pullback waa tan ma qaaday course uu qaaday daha oo tan adiga arka pullback tan dee order block ayaa laga soo celiyey okay let's say eegno niman yahow wax shaqeynaya suuqan raasidan iyo mantar fiican raasida wallahi bilay soomaalidan iyo waxay sameynayaan brotherkay lacagtii focuska saarayaan kin meegayaan qofkani inuu wax fiican ma ku baraya wax suuqan ka shaqeynaya halkani investment last pullback tan ma noqonaysaa of course me in order block kan me yes we okay high low ugu dambeeyay me calaamadii waa low high hadduu suuq halkan ka sare maro hadduu suuq bartan ka sare maro waxay noqonaysaa break of structure change of character oo suuq wuxuu noqday dhow up trend buu noqday listeen eegno suuq uu kala bedelay uu change of character baa dhacay change of character macnaheedu waxa weeye oo suuqa marka highgaagii anba la jebiyey anba lowgaagii ugu sarreeyey la jebiyaa la dhahaa change of character baa la dhahaa markaa balan eegno change of character waxay yihiin kale okay okay maxaa dhacay post baa break of structure baa ka dhacay last pullback wayna loo qaadaa okay wayna pullbacktan laga soo istaajiyaa pullbacktan halkana break of structure bay noqonaysaa suuqu ka change of character baa ka dhacay lasi aan eegno in pullbacktan laga soo istaajiyo course waa la soo istaajiyey oo la isubgareeyey oo laga socday suuqan structure saasuu ahaanaya niman yahow waxaan wax shaqeynaya for 1 minute haddaan tago lasi 1 minute okay I will show you 1 minute 1 minute 1 minute baynu tusayaa 1 minute 1 minute structure baynu tusayaa okay let's see cut here order block
suuqan iyo xalay buu suuqan ka furmay. Okay, let's see 1 minute. Okay, cancel buu hadda iga dhacay. Maanta labada trade-kana trade baa batan ka qaatay, halkana trade baan ka qaatay. TP-yadii igu dhacay, mid baan batan ka qaatay, mid maanta afar trade baan qaatay, labana cancel buu iga dhacay, labana TP iga dhacay. War 1 minute waxaan 1 minute ka shaqayn maayo. Halkan waxaa dhacay Freak of Structure baa xaggan dhacay. Boos baa dhacay. Okay, meeda pullback waa tan. Pullback macnaheedu waa inducement. Okay, ma laga istaajiyey? Yes, of course waa laga istaajiyey. Suuqan muxuu sameeyey? Order block ma ka beegarinayba. Ma yahan wax suuqan war 1 minute waxaan shaqaynayn male. Halkan maxaa ka dhacay? Halkan waxaa ka dhacay boos baa ka dhacay. Let's see, boos baa xaggan ka dhacay. Okay, muxuu sameeyey? Inducement-igi ma inoo qaaday? Of course ma qaaday. Order block barta ku yaallo cunay. Dad bayga xaggaasaa ka qaadan lahayd. Ma yahow mantar saxar sida Soomaali haddaynan wax free waa iska jecelnahay oo duruufaha ina wala eegaya dhammaanteenba. Forex-na looma soo galo. Waa laga taajiraa. Marka hore education-ka barta, tacliinta barta. Then markaas aynu lacag samayn kartaa. Laakiin adigoo education aanba hayn, aad accounts ka furayso. War niman baan aqaanaa maalin kasta account furto ka gubto. Education-kii focus kama saaraan. Marka niman yahow mantar saxna raadsada waxaan cilmigeenna tababara. Horta wax kasto amba YouTube-ka yaallo iska free moogta waxba kala dhiman. Anaa runtii idiin sheeganayo. Anigu ganay baan ka yara dhigtay, ganay baan wax ka yara fahmay oo mentorship-kiisa maan gadan laakiin YouTube-kiisa baan ka arkay. Then waxaan arkay yar la yidhahdo Trader Hub Master Khan oo mentorkayga kaasaan mentorship-kiisa isagana gatay.